بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن دمانتين بميل والبواد دوني ذا كاجوكتا وأفرت بش أفراد السنة كاللابو كل لحي اللباتنكا برامج كروح كسو قادت دونا ومد قارة تضبيو صدن مالين كدب حقابو مريا دقالك قبل كباريغا دحك الصعونيا سببتي دولة دوادن كإيران لو ويري من هذا ملا قرتي محيهين وحيابها فجع السيدة دولة دوادن كإيران أي سميسي مريكان كإيمان maamulka gumeystaha Israa'iil sidaan in xaalku uu yahay ma moodayeen gantaalada dawladda wadanka Iran ay dagaalka soo gelisay maxay dunidu u la yaabtay loolan adag oo uu ka jiro guud ahaan caalamka maxay tahay dharbaaxada adag ee ku dhacday dawladda wadanka Mareykanka sababta ay u kala gureen NATO ay u kala jabaysana waa maxay midowga Yurub iyo Mareykanka maxaa dhex maray Iran iyo xulafadeedu maxay dareemayaan dagaalka ka soconaya Lebanon iyo waqooyiga Falastiin marka muxuu ku kordhiyay karaankarka iyo karka dagaalka gobolka dhexe heebidii Mareykanka in dhulka ay la samintahay ma dhabba Israa'iil markale ma u laaban doonta dagaal qaraaro ay ku qaado dawladda wadanka Iran dib ma la isu xisaabin doona aragnaya diryanka madaaficida iyo awoodaha dirodoriga ee dawladda wadanka Iran sheekooyin cajiib ah warbixin xiiso badan ayaanu barnaamijkan idin ku haynaa hadii alla ka dhigo saaxiibadayo soo dhawaada mar kale kanaalka subscribe siya la wadaaga saaxiibadiina muuqaalka aragtidiina ka dhiibta soo dhawaada waxgaag soonkii aan soo dhaafnay subax Sabtiyaas 27 bishii February 2026 wacdar ayaa dunida ka dhacay albaab in muddo la garaacay hase ahaatee furiinkiisu uu dhib badnaa ayaa subaxdaasi albaabkiisa degdeg ku jabay durbaba waxa gantaalo la beegsaday gudaha wadanka Iran dhulka isku ma jiray caasimada wadanka Iran Bahran ayaa lagu salaamay gantaalooyin cajiib ah daqiiqada kadibna waxa naf waayay safkii ugu horeeyay ee dawladda wadanka Iran xidigii wadankaasi 7 sano maamulayay Allah uu naxariistay Ayatollah Ali Khamenei ayaa shahiiday taliyaashii ugu sareeyay ciidamada lagu daray wasiirkii gaashaandhigga Aziz Nasri ayaa isaguna shahaado qaatay xaalka dawladda Iran wiiq ayay isla tiri duqeymo isdaba jooga ayaana xigay meelihii sida weyn loo duqeeyay waxa kamid ahaa mid kamid ah ilaa 2 iskuul oo ay dhiganayeen caruur yar oo waliba dugsiga hoose halkaas ku dhawaad 200 oo caruur ayaa ku naf waayay intaas wixii ka dambeeyay sheekada way adkaatay durbaba daqiiqada aan oranayna saacado gudahood ayaa mar qura dagaalka waxa uu ka qarxay laga soo bilaabo Bahrain ilaa iyo dhulka Falastiiniyiinta xoog lagu haysto xaalka Mareykanka iyo Israa'iil xiif ayuu markaas noqday ma joogsana dagaalada iyo Iran dusha ayaa laga koray dharbaaxooyinka daba jooga iyo gantaalada ayaa roobta looga dhigay mas'uuliyiin kale oo ka tirsan ilaalada kacaanka ayaa gacan adag mar kale ay gaartay markaas Mareykanka iyo maamulka Israa'iil waxay la ahayd hawshu inay socoto daqiiqada ama maalmo kadibna inkastoo Israa'iil iyo Mareykanka markii ugu horeysay ay shaaciyeen dilka hogaamiyihii ugu sareeyay wadanka Ali Khamenei Iran ma qarsan iyana banaanka ayay keentay inkastoo duqeymo culus iyo dagaalo qaraar ay dhacayeen haddana ayaama dabadeed ayaa looga dabaaldegay loogana tacsiyay fagaarayaasha waaweyn ee ku yaala guud ahaan wadanka Iran ee gaar ahaan caasimada Tehran Ali Khamenei iyo hogaamiyaashii geeriyooday ciidano oo moodootiin Iran dagaalka ayay mar kale u sii laabatay wiilasha ilaalada kacaankana waxay wacd ku mareen heeriyada duulaanka mar kale inay iska dulqaadaan diryanka madaaficida iyo diyaaradaha droniska ayaa durbaba daakum ka dhigay saldhigyadii wadanka Mareykanka ee gobolka bariga dhexe ku yaale tusalaha kooban Bahrain istagi Imaaraadka Carabta iyo Kuwait ayaa markii ugu horeysay bafoolaad noqday diyaaradaha dagaalka dawladda wadanka Mareykanka askartii tirada badneed iyo raadaar la ku fadhiyay balaayiin dollar ayaa iyaga nuuciida lagu diray diyaaradaha droniska dawladda wadanka Iran ayaa diiq ka noqday hawada wadamada Imaaraadka Sacuudi Carabiya istagi Imaaraadka Carabta Qatar Bahrain iyo lagu diray wadanka Kuwait shakadu cirka ayay mar kale isku sii shirartay muka xasuusiya intaas waxa ka soconaya dhulka xoog lagu haysto ay Tel Aviv foolaad u tahay ama Qudus ay foolaad u tahay ganacsigii dhaqaalaha marka laga hadlayo ayaafa ama Tel Aviv food u tahay ama ay foolaad u tahay iyadana duqeymaha waxay ugu daadanaya sidii roobka Iran markii ugu horeysay Israa'iil ahamiyada ugu horeysay Masir laakiin waxay go'aansatay markii ugu horeysay maska madaxa laga dilaayay in dawladda wadanka Mareykanka indhaha tirto raadaaladii mucjisada ahaa ee boqolaalka kun oo kiiloomitir laga kontaroolay ayaa indhaha laga riday raadaal jooga
$300 milyan ayaa galaafaday diyaarad $35 oo kaliya lagu sameeyay wadamadii carabta iyaguna markii hore dagaalka sheeda ka daawanayay ayaa dabka guryahooda soo galay diyaaradaha droniska iyo gantalada balastiga ah ayaa hawada wadamada carbeed ciyaar la yaab leh ku soo bandhigay durbaba wadamadii carbeed ee kontankii sano la soo dhaafay si weyn u dacminayay Mareykanka iyo saldhigyadiisa halka ku yeeleen qiiq iyo holac ayaa ka baxay durbaba waxay taasi keentay in askarta wadanka Mareykanka ay marti noqdaan walow muddo badan waan idin ilaalinayna balaayin dollar ama trillion dollars carabta lagaga qaadan jiray warkii ayaa been isku rogay dhabta ayaa dharaar noqotay waxay suurto gashay in ciidamadii Ameerikaanka ee wadamada khaliijka xooga muruq iyo itala muujinta ku joogay ay marti u noqdaan guriyadana la geliyo waxa la arkay markii ugu horeysay askar Ameerikaan oo dharka laga siibayo si looga badbaadiyo droniska iyo dilka dawladda wadanka Iiraan intaas kaliya maya durbaba waxa la arkay diyaarado dronis diyaaradaha qumaatiga u kacan ilaahde ee dawladda wadanka Mareykanka F-35 iyo F-markaas 16 ayaa ku soo daatay saxaraha wadanka Kuwait waxay ahayd mid kamid ah ayaamihii ugu madooba ee dawladda wadanka Mareykanka soo mara kontankii sano la soo dhaafay duuliyaal Ameerikaan oo diyaaradoodii gubatay ayaa dad shacab marti u noqday warwaa ma hubaysanayay idilin ayaa ka dhacday shacabka Kuwaitiyiinta ayaa gaari dabada ka galiyay waxay ahayd arin aad u fulxun oo dawladda wadanka Mareykanka kudla lagay ku noqotay dib waxay Mareykanku u xasuusisay wixii magaalada Muqdisho ka dhacay sanadkii 1990 markii ciidamadii Mareykanka General Aidid ay ku dagaalameen magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya dib noo soo celiyay hadaba intaas markay xaajida marayso sheekaduna ay toddobaad marayso dawladda wadanka Iiraan ayaa dagaalkii dhinaca kale u rogtay hadda ayaa gacan adag loo qaaday xoogagii gumeystaha ahaa dagaalkana muddo badan gadaal ka dacminayay adkaatay markii ugu horeysay ayaa la arkay gantaalo guuxooda ka dheeraya midkiib oo kaliya uu 200 oo gantaal isku rogi karo wareer ama kaag ayaa dhacay indhaha ayaa wiirshi noqday durbaba sidii roobka dhibacaha roobka ayay hawada ugu soo daatay Talaabiib ayaa isku bedeshay magaalada Khayunus ee ku taala koonfurta magaalada Gaza waxay Gaza dukum daakum ka dhigtaaba markan ama doorkan waa iyadii Talaabiib al-Kubra meesha la yiraahdo ay degan yihiin dadka hantiilayaasha ah isla markaana halka ugu badan oo Israa'iiliyiinta ay ku nool yihiin ayay dawladda wadanka Iiraan fuulad ka dhigatay toddobaadii halkaas la duqeynayeen saaxadda ayay ka baxday Netanyahu iyo golihiisa wasiirada ayaa ciid hoosteeda maciinbaday wararka qaar waxaa sheegayaan in ay ku jiraan god ku yaala masaajid barakaysan ee Qudus hoostiisa halkaas oo nafi ay ku tiri waa amaane aada sheekadu inta kuma ekaan dagaalka waa uu socday dawladda wadanka Iiraan duqeymaha lagama joojin cambaaraynta carabta caloosha waa weyn ee xijaabada xirana ciidda iyo cirkaas ku sii sharaatay ahaatee dawladda wadanka Iiraan marka hore babado meel u tumnayo dagaalku ahaa waxa la islaaha 2 toddobaad kadib Iiraan way naafiwi doontaa dagaalka ma sii wada karto daraar batan ka dambaysa hamiga dawladda wadanka Mareykanka maamulka gumeystaha ayaa god ku sii dhacaya Iiraan habeenkii iyo maalintii dhaafaaba tan soo socota ayay ka awood badnaatay 2 toddobaad markii dagaalku u marayay dhaqaalihii wadamada carabta ayaa 40% dhulka galay shirkadihii Mareykanka iyo saldhigyadii dawladda wadanka Mareykanka ee ku yaalay wadamada khaliijka ayaa iyaguna noqday kuwa howlgab ah dhimashada askarta Ameerikaanka iyo dhaawacooda ayay warbaahintu ku murantay General Ameerikaan ayaa halkiis ka casilay xaalka madaxweyne Donald Trump waxa uu noqday Allah ayow nin badbaado ka codsaday bugun kara waaye intaas kuma keenay sheekadu markale ayaa la isa soo jabaaray saldhigyo wadamada NATO ay ku leeyeen wadamada Turkiga iyo Azerbaijan ay gacantu gaartay laakiin aan durbaba waa diiday durbadii ba Israa'iil mukhaabaraadkeeda dhinaca dibadda ee Mossad ayaa isku dayay fara la yaab leh waxa ayna bilaabeen wadamadii Carbeed ee martida u ahaayeen in moogan ay falal amni darray ka sameeyaan xarumihii shidaalka iyo gaaska ayay durbaba Mossad duqeysay carabto iyaguna aanay feejignaan ku helin ayaa markii dambe fursad alla qadaray awgeed waxay ogaadeen duqeymo in halis ay ka socdaan gudaha wadamadooda ha joogtay diyaaradaha droniska iyo kondegantalada balastiga ah waxay ogaadeen Israa'iil gudaha wadamada carabta dukum daakum iyo duqeymeena ka wado qadar oo kaliya 300 oo jawaasiis ayay gacanta ku dhigtay Sacuudi warkeeda isu tag Imaaraadka Carabtana markii hore waxa looga naanaysan jiray Israa'iil shiyar ala itixaal
isbuuci saddexaad dagaalka markii uu dhammaaday waxaa guul la isla tiigsaday qalanka iyo buuggana dib looga xisaabtamay saddexdii toddobaad la soo dhaafay wixii dhacay Mareykanka markii uu qalinka iyo buuggu isku qaataa niyad jab iyo burbur ayaa imaanaya waxaa la arkaya diyaaradihii dagaalka ee Mareykanka oo ciida galay maraakiibtii dagaalka iyo kuwii nuclearka ee Mareykanka oo qaarkood dhaawacyo culus gaareen inkastoo tiradoodu ay badnayd haddana tayadii ayaa yaraatay tilaab walbo la qaadayo nuqud walbo ama dhibic kastoo la istaagaaba dawladda wadanka Mareykanka jab iyo xaalad culus ayay wajahday xaalkan waa u adkaaday durbaba madaxweyne Donald Trump ayaa bilaabay in wadamada Carabta iyo dawladda wadanka Turkiga uu wada hadallo u diro maxaa yeelay xaalka adkaaday ciidanka Mareykanka ayaa durbaba meedkooda laga dajiyay gudaha wadanka Mareykanka baroorta ayaa isqabsatay xajadana waxay noqotay nin daad qaaday xumbu cuskay Israa'iil iyo Mareykanka xajada ayaa ka xumaatay balse qaar ka mid ah warbaahinta ayaa wariyay in dilkii iyo weerarkii 28 February 2026 ay galeen mid ka mid ah khaladaadadii ugu waaweynaa Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu malaayiin Israa'iiliyiin ah ayaa muddo 3 isbuuc markuu dagaalku u marayo dhulka hoostiisa galay canaan iyo cambaaray marna aan la aqbali karin ayaa ka soconaysa dhulka xoog lagu haysto gudihiisa Israa'iiliyiinta ku jira qax ayaa tira beel dhaafay Masar ayaa iyaduna dhaqaale aan yareen ka heshay Israa'iiliyiinta u dul qaadan waayay gantalada guuxda ka dheeraya diryanka madaaficida iyo dhawaqa siirida ee markaas sheegaya gantalada dawladda wadanka Iran ee soo wajahayeen intaas kaliya maya dhinaca kale xogaga reer Lebanon ayaa iyaguna dagaalka durbadiiba ku biiray gantaalo iyo ciil iyo carjo muddo badan ku tahay ayay laabta ka ooyeen duqeymaha iyo ciidamada lugta ayaa la isfarasaaray Mareykanka iyo Israa'iilna xajadu way ka xumaatay inkastoo magaalooyinka Tehran iyo markaas la burburiyay Beirut hasa ahaatee guri la dumiyay guul ma noqdee hawshu wali faray kama qodno oo waxay tahay fardan la isu haya maxaba la isugu faalay Israa'iil waxay qiranaysaa hadda oo dagaalku uu marayo isbuuci shanaad jab noociisa kale taan hore loo arag Netanyahu ayaa taariikhda markii ugu horeysay muuqaalo AI ku soo galay warbaahinta taasoo ugu dambeyntii yana noqotay mid ka mid ah fadaxdii ugu xumaa dagaalku inkastoo hadda uu toddobaadka shanaad ku jira haddana maalmo ka hor dawladda wadanka Iran waxay dhulka soo dhigtay diyaaradda la yiraahdo F-16 iyo F-15 ilaa imakaan wada hadlaynana waxaa la baadi goobaya duuliyaal Amerikaan ah oo laga raadinayo duleedka markaas galbeed ee wadanka Iran diyaaradaha droniska 16 in ka badan ayay dhulka soo dhigtay F-35 ayaa maqan F-16 ilaa 7 ayaa maqan maraakiibtii dagaalka ee Mareykankana saaxadda waa ka maqayeen Mareykanka iyo Israa'iil ujeedadu waxay ahayd in dawladda dhacdo sidoo kale tun xukuumadda la bedelo si loo soo celiyo caloosha shaqaystihii u dhalay wadankaas mid ka mid ah caloosha shaqaystayaashii uu dhalay boqorkii Shah la oran jiray ee 50 sano in ka badan wadanka Iran maamulayay Israa'iilna ka mid ah kuwii ku beeray gobolka Bariga Dhexe laakiin meeshii roob laga filayay ayay imika ceeriya ama ka timid 5 isbuuc kadib dawladda Iran way xoog badan tahay Mareykanka iyo Israa'iilna way daciifayaan gantaalada wadanka Iran in la qabtay iska badaya markan magacooda ayaa laga khalkhalay gantaalo aanan aqaan ayaa saaxadda soo galay waxaana ka mid ah gantaalka la yiraahdo Khashmar 4 ama markaas Khashmar 4 gantaalka la yiraahdo oo ka mid ah gantaalada ugu mucjisan Kharmushahar 4 waa mid ka mid ah gantaalada sida la yaab kale Israa'iil ugu walwasho waa gantaal guuxisa ka dheeraya ugu yaraan 70 madaxyo wata mar qurahayay dawladda wadanka Iran hal gantaal ku weerari kartaa in ka badan 40 goobood in la soo ridaana warkana bada jawaasiis ka tirsan ciidanka gumeystaha ayaa durbaba gacanta lagu dhigay nidaamkii difaaca ee maamulka gumeystaha Israa'iilna waxa uu noqday fahal tara lahum min baqiya yani waxba kama jira 5 toddobaad kadib Iran waxay joogtaa mid kamid ah guulihii ugu adkaa Mareykanka iyo Israa'iilna way ka qoosteen nidaamka la bedelo dawladda wadanka Iran bal qaar kamid ah mukhaabaraadka reer galbeedka ayaa dhawaantan wariyay in ay si weyn uga qomameynayaan Mareykanka iyo Israa'iil in ay dileen saraakiisha ugu sarsareysay ciidanka wadanka Iran sababta miyaad weydiisay waxa hadda ciidanka dawladda wadanka Iran gacanta u galay dhalinyaro ilaalada kacaanka ka tirsan kuwaas oo marna aanay cabsi gelinaynin digdigta iyo diyaaradaha
diryanka madaaficida dowladda waddanka Mareykanka waxaana hadda si dhab loo garan laayahay cidda sida guud u maamulaysa ilaalada kacaanka diryanka madaaficida iyo duqeymahooda Israa'iil waxay u noqdeen dhiig joojin iyo sidoo kale sida raashinka oo kale ayay saddexda goorba cabtaa duqeymaha ka imaanaya Lebanon ayaa iyaguna ka sii daran xuutiga markii uu ku soo biirayna xaajida waaba xumaatay dabcan ciidanka Israa'iiliyiinta ah weerarka ku qaaday koonfurta waddanka Lebanon cala alciyo ataayo tir badan ayaa la weerinayaa iska daa waxa la marayaa in askarta halkaas joogta ay dadka ka soo jeeda ku mudaharaadaan gudaha Israa'iiliyiintuna dhulka hoostiisa ayay ku jiraan gantaalada dowladda waddanka Iran ayaa burburka ka soo kowdaaraha dhulka hoostiisa kaga tagay Israa'iiliyiin halkaas nafkar haadiyay Netanyahu iyo golihiisa wasiirada fagaaraha ayay ka soomeen taliyaasha ciidanka ugu sareeyana waxay leeyihiin dagaalka oo soo socday inaga ayaa ku dumi doona dabcan Mareykanka iyo Israa'iil waxay raadiyeen mid ka mid ah albaabadii ay dagaalkan ugu bixi lahaayeen hase ahaatee Iran oo si wanaagsan u fahantay halka ay ka nugul yihiin Mareykanka iyo Israa'iil oo dagaalku muddo dheeraada ayaa daaqadaha ka turtay fariimaha diblomaasiyadeed ee ka imaanaya caloosha u shaqeystayaasha Mareykanka oo heelan intaas kadib xuutiga markii ay dagaalka ku biireen Israa'iil markale iyadii Mareykanka ayay gacmaha madaxa saartay ujeedadu xuutiga hore ayaa la isku bartay tiro 4 mar ayayna dagaalameen isaga iyo Mareykanka ma jirto wadamo carbeed oo dhinaca xuutiga dayn karta 9 sano oo dagaal kadibna runta ayaa la isu sheegay isu tag Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya 4 salaadood ama 5 salaadoodba waxay Ilaahay ka magan galan xuutiga inuu yahay ku soo jeediyo Mareykanka iyo Israa'iil xuutiga duqeymo kuma qaadi karaan maxaa yeelay diyaaradihii bahawa ay marayaan lama haaye meel ay gaas ka qaataan warkeeda badaa 5 toddobaad kadib khubarada dhaqaalaha waxay wariyeen dowladda waddanka Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Israa'iil in ka badan 700 bilyan oo dollar inay ku sii dhowdahay khasaaraha guud ahaan marka la isku dardaro dhabarka ayaa laga toogtay dharbaxa kuluna farada ayay kaga taala Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Israa'iil weli maamulka dowladda waddanka Iran sarkaalkii la dilaaba mid ka naxariis dan ayaa lagu bedelayaa Iran waxay noqotay dunida waa maadaysi Iran waa matalisa mar walba la eego iyo maqrada siyaasadda iyo gobolka oo dhan waxa markhaati laga noqonay dowladda waddanka inay noqotay mid ka mid ah darbiyadii ugu adkaa ee dunida markii ugu horeysay ay wajahaan Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Israa'iil daawada 7 maalin kadib adiga maxaa ku muuqanaya maguusha dowladda waddanka Iran oo irqis ku sii shirartay Mareykanka reer galbeedka iyo weerarka lagu qado waddanka ku kala guuray NATO iyaduna ku kala dhaqaaqday Macron iyo Mareykanka meel fog ayay kala gaareen iyadoo oo dowladda waddanka Ingiriiskana Iran gacanta ka taagtay nala wadaag aragtidaada dib intaan kulmi doono nabadgelyo